1997 Ameerika hotel ku yaalay habeenkaas waxaa lagu dhiganayay xafladaasi markii ay dhammaatay hoteelka biyaanadiisa hoose ama farxadiisii dadkii way ku kala dareereen balse hoteelka waxaa seexan jiray laba wiil qisadan waxay ku socotaa labada wiil oo ka mid ah hoteelka seexan jiray dadka kale ma sheegayo laakiin labadan wiil habeen kasta waxay ku seexan jireen iyagoo daawanaya filimaanta horarka ama wareer aakhiraadka waxay doonahaba noqotee qof kastana waynu naqaanaa waxa ugu dambeeyay ku seexdo ayuu ku riyoodaa badanaa dadku waxa ugu dambeeyay ay ku riyoodaan waa wixii ugu dambeeyay ay sameynayeen markii ay seexanayeen sheekadan ayadoo riye ahayd ayay waxaa isku bedeli doontaa ruun bal ila dhagaysta ama weyla daawada wiilkan dharka baluugan waxa uu ahaa mid fakar badan laakiin ma ahayn mid riyo badan balse halka kan dharka cad uu ahaa mid habeenkii riyo badan had iyo jeerna wuu riyoon jiray kadib markii uu aaday suuliga muraayadda ma aysan jabnayn sidoo kale wuu isku fiirinayay wuuna isla hadlayay wuu soo baxay waxa uu siixday firaashkiisii markii uu cabaar hurdayay muraxada u daarnayd ayagoo iska hurdaayay wiilka finaanada cad waxa uu ku riyooday waxyaabo ka cabcabsiiya niyadiisi waxay keentay halkan balse cabaar ka bacdi waxa kan ayaa uga soo dhex baxay markii uu uga soo dhex baxayna badda dhexdeeda wiilkii waa uu soo booday wuuna naxay qayladiisina ma uusan maqlin saaxiibkiisa leysiga ahaa wuuna iska sii hurday hurdadiisina wuu iska sii watay xataa ma uusan dhihin maxaa kugu dhacay saaxiib markii hurdadiisa iskaga noqday cabaar ka bacdi waxay noqotay subax arooryadii hore intaysa qoraxdu soo iftiimi lahayd ayuu wiilkii haddana wuxuu ku riyooday markii isagoo soo kacay kadib uu arkay muraayadii oo dhiig leh waa riyo waxa uuna isaga la tahay inuu galay suuliga waxaana muraayadaha meesha uu fiiriyo ama indhihiisa ay qabtaan wax uu ku arkayay isagoo isku weeran indhaha ayuu big ka siinay markastana waxa uu noqonaysay ama uu ahayd baynu arkayo isagoo saddex qof oo isaga ka mid ah hortaagan riyadii kadib markii uu cabaar ku badbadatay dadkan laba ka mid ah waa ay jajabeen balse midii kale waxay noqotay isagoo cunuga ama waxa laga dhex tusay muraayada dhexdeeda cunug kadib suu fiirinayay cunugii yaraa isla markii waxa ay jajabtay muraayadii waxaana ka soo dhex baxday waxyaabo cabsi leh wiilkii waa uu sii naxay aad ayuuna sii naxay wuu qayliyay saaxiibkiis waxa uu sheekiyay labadii riyo xalay ku riyooday sidoo kale waxa uu sheegay inuu xalay dhowr jeer kacay balse uusan u kicin saaxiibkii waxa uu ku yiri anigu ma maqlayn waxyaabaha adigu lahayd ama aad ku riyoonaysay xitaa ma ogeyn inaad qaylisay dhibaato male ayuu ku yiri nakeen waan labisanaynaa bannaanka ayana aaday labadii wiil waa is soo raaceen ayagoo muraayada ku shitay faynuus muraayadana waa isku fiiriyeen wiilkan dharka buluugan waxa uu ahaa mid aad u degdegsan waxaanu rabay inuu dhaqso aado magaalada markii uu dhaqdhaqday cabaar kadib waxa uu ka soo baxay wiilkii suuliga saaxiibkiis keligiisa ayuu uga soo tagay meeshii kadib cabaar ka bacdi saaxiibkiis maxaa ku dhici doona bal la dhagaysta ama bila fiirsada wiilkii isagoo silees ka bax magaaladana iska aad ayuu wuxuu dareemay in uu saaxiibkiis muddo dheer ku qaadatay inuu suuliga ku jiro waxa uu yiri aan ka war doono bal maxaa helay wiilkii waa uu soo baxay wuxuuna imaaday dhankii suuliga laakiin saaxiibkiisa weli waa uu noolaa waxa uu arkay saaxiibkiis wax ka cabsi siiya muraayada ayuu wuxuu ku arkay naagtii ku riyoonayay habeen hore wuuna naxay waxaa ka soo maqlay qayladiisii saaxiibkiis waa uu imaaday mise albaabkii maba isfurayo waa uu baxay boolis ayuu u yeeray wixii ayuu u sheegay dhacay waa uu soo kaxeeyay kadib markii albaabkii la jabiyay waxa uu arkay saaxiibkiisa oo la dilay ma isdhihi kartaa waxaa ka dambeysay dilkiisa naagtii haa naagtii ku riyoonayay ayaa dishay
halkaasna waxaa loola cararay wiilkii hosbitaal si loo soo daaweeyo. Saaxiibkiisina murugo iyo fajac ayaa ku abuuray.